halkan waxaan muuqaalkan u duubayaa laba su'aalood baan doonayaa inaan tolkay weydiiyo Solomadow gaar ahaan waxaan si khaas ah u weydiinayaa su'aalahaas oo hoose abtiyaashay Xasan Cabdille abtiyaal afartii nin ee naga dhintay ee jidgooyada loo galay ee gacanta ka xaqdaran dishay ee bareerka loo dilay maxaa keenay in si muhmala oo degdega loo aaso ma dawladda ayaa iska aastay iyadoon cidna kala tashan iyadoon cidna waxba ka weydiin mise qaar idin kamida oo calooshadoo shaqaystayaal ah ayaa loo soo dhex maray oo wax weeye saxaxay waa su'aasha koowaad su'aasha labaad dadka kale marka hal qof laga dilo iska daa 4 qof iyo 5 qof iyo dad dhan oo meel maraya marka hal qof laga dilo qayladaas u yeedha dunidoo dhan baa gariirta meydkana lagama aaso ilaa iyo meydkooda meel lagu cadeeyo oo ciddii qaadan lahayd iyo ciddii dishay meel lagu cadeeyo maxaa keenay in 4 nin oo 24 saacadood gudahood dhintay loo aaso sida uuska xoolaha loo duugo uuska xoolaha marka la qalo si loo soo duugo in loo duugo in way dhinteen mooyaane waa la aasayba la maqli waayo oo goor alaali goor la aasay la garan waayo maxaa keenay su'aashana iga soo jawaaba haddii dawladdu amar la'aan ku aastay haddaan dawladdu waxba inaga weydiin haddii iyadu say doonto ka yeeshay dee waa warcad waa la subareeray waxaanu ka yeelanaynaa waan garanaynaa haddii inagu ciladu xaggeena tahayna dee waalidii raajac walba wax ka jiraanay bal su'aasha iga soo jawaaba labada su'aalood iga soo jawaaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh